Waa qaybtii lixaad qisooyinka nebiyada. Waxaan qaybta hore ku soo qaadanay markii ugu horreysay ee dhulka lagu caabuday sanam. Nebi Nuux oo la soo diray. Nebi Nuux calayhi salaam wuxuu ahaa qof rumaysan Allah subxaanahu wa tacaala. Waxa uu u tegay qoomkiisa isagoo ugu yeeraya rumaynta Allah keligii oo aan loo shariig yeelin. Wuxuuna dhihi jiray, qoomkaygiiow, anigu waxaan idiin ahay mid idiin diga oo weliba digniin cad ah. Waxaan idin leeyahay, alle caabuda oo ka baqa oo adeeca. Balse hadalkii Nebi Nuux calayhi salaam dhagaha ayay ka furaysteen oo way iska indho tireen. Waxayna dhihi jireen, adigu waxaadna dheer tahay ma jiro, dadka adiga ku raacayna waa kuwa u liita bulshada. Markasta uu xagga Rabbi ugu yeero Nebi Nuux calayhi salaam, dhagaha ayay faraha gashan jireen. Haddana Nebi Nuux wuxuu juhdi iyo dadaal ku bixiyey inuu u nasteexeeyo qoomkiisa. Nebi Nuux wuxuu xusuusin jiray fadliga iyo nimcada uu Alle ku manaystay qoomkiisa. Haddii qof iyaga ka mida uu dareemay in geeridiisa ay soo dhowdahay, wuxuu u dardaarmi jiray carruurtiisa, wuxuuna dhihi jiray, iska ilaaliya ninkaas, yaanu diintiina idinka saarine. Nebi Nuux wuxuu sii waday dacwadiisa, haddana qoomkiisa waxay gacanta kula jireen fisqi iyo macaasi. Wuxuuna dacwadii waday 950 sano oo uu diinta ugu yeerayay, qiyaamahana xusuusin jiray. Waxaa la sheegaa inay rumeeyeen dad tiro ahaan aad u yar. 80 qof ayaa lagu sheegaa inay ahaayeen dadkii rumeeyey Nebi Nuux calayhi salaam. Waxaase la yaab leh in xaaskiisii oo dadka ugu dhoweyd aysan rumayn Allah subxaanahu wa tacaala oo ku kufriday. Nebi Nuux ayaa Alle barye oo yidhi, Rabbiyow, aniga waa la iga adkaaday ee ii gargaar. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa u waxyooday Nebi Nuux in qoomkiisa aysan rumayn doonin intii horay u rumaysay mooyee, sidoo kale uusan isku murjin waxay samaynayaan. Nebi Nuux ayaa Alle ka baryey inaan arlada korkeeda looga tegin wax gaal ah, waxaana la faray inuu u sameeyo doon ay fuulaan isaga iyo intii rumaysay. Nebi Nuux calayhi salaam wuxuu guda galay samaynta doonidii la faray. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa u waxyooday sida loo sameeyo doonta. Qoomkiisii markii ay arkeen Nebi Nuux oo dooni samaynaya, waxay bilaabeen inay ku jeesjeesaan. Waxayna dhihi jireen, Nuuxow, ma najaar baad noqotay oo nebinimadii ma iska daysay? Wuxuu Nebi Nuux ku warceliyey, haddaad iminka nagu jeesjeestaan, innaga ayaa idinku jeesjeesi doona idamka Alle. Wuxuu dhisay doon aad u weyn oo ka kooban 3 dabaq. Dabaqa hoose waxaa la dejiyey wuxuushta iyo dugaagga. Qaybta dhexe waxaa la dejiyey daabooyinkii iyo shimbiraha. Dabaqa sarena waxaa degay Nebi Nuux iyo intii rumaysay. Waxaana la faray in xayawaanaadka nooc waliba, lab iyo dhadig, la saaro doonta. Doonida socodkeeda iyo joogsigeeduba wuxuu ku xiran yahay bisinka. qaybtan halkaa haynoo joogto. Soonka iyo cibaadooyinka Allah inaga wada aqbalo. Muuqaalkan u sii faafi walaalaha kale si ay uga faa'iidaystaan. Ramadaan mubaarak.